marxuumkani maanta ay dileen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa daadiisa waxa lagu sheegay 41 jir mar uu gooynayay wadada Makal Mukarrama gaar ahaan agagarka Tarebiano ayaa kolonyo ciidamada midowga Afrika ayaa waxa ay ku jireen wadada isagoo marxuumkani markii ay jireen kadib halkaasi ay kaga gudbeen meydkiisa isla markaasina aanay u istaagin ciidamadii midowga Afrika ee jiray marxuumkani rayidka ah ee maanta ay dileen markii ay ka gudbeen ciidamadu ayaa waxa halkaasi iskugu yimid qaar ka mid ah dadkii xaafadda ka agdhowaa kuwaasi oo ka carooday iyadoo ay soo gaareen ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxaana dadkii halkaasi iskugu soo xoomay iyo warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada gaar ahaan taliyaha ciidamada saldhigga degmada Hodan kaasi oo ka warbixiyay isla markaasina sheegay in gacanta ciidamada dowladdu ay ku dhigeen askarigii geystay dilkani gaar ahaan darawalkii waday gaariga ninkani jiray si qalad ku dhacay meedkiina uu dhintay waxaana dilay baabuurta AMISOM ciidanka xoog militariga waxaan guuleysay qabtaan waan qabanay gaadiidkii dilay waan la abaal marin doonaa hadii Allah idmo meedkiina waa la qaaday wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum qaar ka mid ah qaraabada marxuumkani ay dileen maanta ciidamada midowga Afrika ayaa waxa ay warbaahinta iyaguna u sheegeen mar ay raacayeen meydka marxuumkani ka geeriyooday in ciidamada dowladda ay ku wargeliyeen in gacanta lagu dhigay isla markaasina uu xiran yahay askarigii waday gaariga ninkani jiray isla markaasina ay tiigsanayaan sharciga waxaana mid ka mid ah odayaasha ehelka la ahaa marxuumka geeriyooday hadaladiisii isagana ka mid ahaa صالح نور محمد علي رادة وأفرتني كم جرها عرول والد تضبع عرول سنية أنا واحد بانك إدعى هذا قاسهان حاسس بوجهه هذا قاسة كم إهل وهنا أنا سنت مسكبح المركز لا استاجر وإسكبح هذا وهكذا ما هو شيء هراء ودتي حاله كان عيد دوينه مدة صوماليات يبولش كم حين نقول جلين إنك دباتس جيست وحرية أنا وحنا إلا أن صار من المسك حرية يسس حرية أنا سأركب ما أمنينا حتى مدة ساعة المقادة عندي ما راح تولد معك عسل ما راح تولد هلا بيار ما يسنا وحنا إن عدالة صلاحية لجور صلاحيه مدة كلا تعدس كيو دبعتنا بحسن الشعب كإن لو جيسنين الله دار يرقف كسب إلى عليه كركيسة أسكير إلى عليه حمان نيك قرانشة أو حن مركز خليته حياة حلقية وحكويني كي قبتنا محل جرب إن دولة أي عندها سيسوي هاي أقوى falkani ayaa markii uu dhacay waxa si weyn uga naxay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan dadkii ka agdhawaa meesha uu ka dhacay shilka waxaana saraakiisha ciidamada dowladda ee goobta soo gaaray ay dadka Soomaaliyeed ee ugu baaqeen in istijiyaan isla markaasina sharciga la horgeyn doono askarigii ka dambeeyay dilka marxuumkani maanta rayidka ah ee ciidamada midowga Afrika gawaaridoodu ay ku jireen magaalada Muqdisho